Soomaaliya waxay dhawaan yeelatay madaxweyne cusub iyo ra'iisul wasaare. Madaxweynaha ayaa caleemasaarkiisa kadib safar ku tegay dalka boqortooyada Sacuudiga oo kula soo kulmay madaxda dalkaasi. Tallaabadan oo loo arkay mid uu ku doonayo inuu ku abuuro xidhiidh xooggan oo ay dowladdiisu la yeelato dalalka Carabta. Qaar ka mid ah dadka ka faallooda siyaasadda gobolka Geeska Afrika ayaa sheegaya inuu jiro tuhun ay dalalka derisku ka qabaan nooca uu noqon doono xidhiidhka cusub ee dowladda madaxweyne Farmaajo ka dhaxayn doona. Haddaba wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintaasi warbixin gaara ku eegaya. dadka ka faallooda arrimaha gobolka Geeska Afrika ayaa ka digaya in xukuumadda madaxweyne Farmaajo ay halis ugu jirto dibindaabyo kaga timaada awoodaha gobolka taana ay keento inay fulin weyso rajooyinka sarreeya ee shacabku ka qabaan haddii bay yiraahdeen dowladdiisu aysan meesha ka saarin tuhumo ay qabaan qaar ka mid ah dalalka deriska ah gaar ahaan Ethiopia. madaxweyne Farmaajo ayaa la doortay horaantii bishan isagoo haysta taageerada qaar badan oo ka mid ah shacabka oo arka nin wax ka qaban kara musuqmaasuq mar walba lagu eedeynayay dowladihii soo maray Soomaaliya burburkii kadib ololihiisii doorashadana ku soo galay halku dhagiyo dhinaca wadaniyadda iyo dhismaha ciidanka ah. khudbadiisii caleemasaarka ayuu Farmaajo ku diray fariin ku socotay dalalka deriska waxaana dalalka aan deriska nahay aan siin doonaa ixtiraam ay naga mudan yihiin inaan faragelin annagu usan dhankeena ka imaan aynan ku samaynin arrimahooda gudaha iyagana intaas in la eg ayaan ka filaynaa insha Allah. dadka ka faallooda arrimaha gobolka Geeska Afrika ayaa sheegaya in calaamado dhowr ah oo isbiirsaday ay dhaliyeen tuhunka la xiriira xiriirka Farmaajo iyo dalalka gobolka gaar ahaan Ethiopia. haddaba maxaa ka jira cabsida laga qabo xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia oo xumaada? su'aashaasi ayaan weydiiyay Zakariya Yusuf oo ka tirsan kooxda ka faalloota xasaradaha caalamiga ah ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo ICG dhawaanna wax ka qoray warbixin ka hadlaysay xiriirka gobolka iyo dawladda Soomaaliya. hoos buu dhigi karaa laakiin waa muuqaal muuqanayo taariikhdu waxayna baraysaa cabdiqaasim markii la doortay si toos u aaday wadamada carabta u aaday soo wadamada deriska ah oo arrimihii derisnimada iyo xuduudihii ka dhaxeeyay iyo ammaankiida soo ka wada hadlin qancin ayuu wadamada carabta aaday. waxaana la wada soconaa wadamada deriskeena ee qaasatan Ethiopia in ay walwal badan ay ka qabto Soomaaliya inay dhinaca carabta u janjeerto. arrin kale oo ay dadka ka faallooda arrimaha gobolka farta ku godayaan ayaa ah in doorashadii Soomaaliya ay Ethiopia door bidaysay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in markaa la soo doorto. Mursal Sanay waa gudoomiye ku-xigeenka hay'adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. waxaan weydiiyay aragtidiisa. midda oo dhabta ah waxa weeye campaign-kii oo uu soo dhamaaday election ama ha noqdaan individuals ama ha noqdaan dawlado. marka reality waxa dawladda Soomaaliya dhalatay madaxweyne Soomaaliya la doortay. marka waxa lagu qasbay in la macaamilo madaxweynaha Ethiopia waa dawlad dandarisnahay u maleynaayo marka wixii campaign-kii waqtigiisa soo dhamaaday inay campaign-kii sii wadi doonaan ama maanta hadda Soomaaliya ka wadnay la macaamilo doonaan ayaan aad u rajaynayaa. caleemasaarkiisii kadib madaxweyne Farmaajo waxa uu safar degdeg ah ku tagay dalka boqortooyada Sacuudiga. tallaabadaas oo qaar badan oo ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha gobolka ay ku macneeyeen bilowga xiriir cusub oo xoogan oo ay dawladda Farmaajo la yeelanayso dalalka Carabta. Cabdinuur Sheekh Maxamed waxa uu wasiirka waxbarashada ka soo noqday xukuumaddii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Farmaajo ee talada haysay intii u dhaxaysay bilihii Oktoobar sanadkii 2010 iyo bishii Juun 2011. waxa u baahan in aan dib u fiirino xiriirada dawladaha ka dhaxeeya markeeda horeba waxay ku xiran yihiin in dawlad walba ay leedahay siyaasad oo yani laga baarandegay oo ku aadan waxa ay ka rabto dawladaha deriska ah waxa ay ka rabto beesha caalamka ah waxa ay ka rabto dawladaha carabta oo la leeyahay mowqifka dawladda Soomaaliyeed ama qaranka Soomaaliyeed ee ku aadan dawladaha deriska waa sidatan oo marka xubnaha dawladda ka socda ee la macaamilana dawladahaas ay ku shaqeeyaan barnaamijkaas qoran oo keeni kara deris wanaag oo keeni kara in la ixtiraamo xuduudaha Soomaaliya oo keeni kara in dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ah wadankooda maaragtay loo gargaaro oo keeni kara in aan ka ilaalino maaragtay dhibaatooyinka ka soo gaaro xuduudeena iyo maaragtay dalkeena gudihiisa. haddii marka aadan aqoonin danta aad ka leedahay dawladaha carabta ama danta aad ka leedahay dawladaha deriska ama beesha caalamka oo aad shirada kula kulanto dabcan waxay noqonaysaa in ay ayaga dantooda ay ka dhamaystaan adiga si aadan haysanin waxaad miiska soo saarato. wasiirku wuxuu isaga baahan yahay maaragtay safarka inuu iska aado laakiin uusan la soconin meesha loo socdo. maamahadii Mareykankuna waxay ahayd haddii aadan aqoonin meeshaad ku socoto dariiq walbaad qaadataa waa ku geeyaa
oo macnaheedu yahay haddaadan lahayn jiha aad u jeedo yani meel walbo aada yani waxba kaaga soo baxaya. marka waxaad leedahay dowladihii soo maray Soomaaliya markii dowladda dhexe laga soo gudbo ma jirin siyaasad qoran oo dalalka dariska ku wajahan. hadday jirtayna waa un siyaasad oo markaa laga wada hadlay oo ahayd waxaasan uga baahannahay laakiin aysan ahayn siyaasad rigli oo qoran. walaalo waxaad xasuustaa dagaalada ka dhexeeya masalan wadamada carabta iyo Iiraan inuu keenay in dowladda Soomaaliyeed lagu khasbo la yiri maaragtay waa inaad ceerisaa safiirkii Iiraan u fadhiyo Soomaaliya. go-aankaasi ma la xiriiray siyaasad Soomaaliya qoran oo dhahaysa anagu maxaan mar walba taagannahay walaalaheena carbeed siyaasadooda ayaana maaragtay aan tixgelinayna mise waxay leedahay war xiriirka Soomaaliya iyo Iiraan dhexeeya muxuu yahay wanaaga aan ka rabnaa dowladaha dariska muxuu yahay siyaasadeena xaggee jirtaa ma Afrikaan bay jirtaa ma dowladaha carabtay jirtaa xaggee raacsanna marka waa in la helaa siyaasad fadhida oo prime ministerka iyo madaxweynaha iyo dowladda ay ku shaqeeyaan ummadda Soomaaliyeed laga dhaadhayo. Soomaaliya waa dal xor oo xubin ka ah qaramada midoobay midowga Afrika iyo jaamacadda Carabta haddaba maxaa keeni kara tuhun ay ka qaadaan dalalka dariska ah safar uu madaxweynaheeda ku tago dal carbeed sida Sacuudiga oo kale waa ka Zakariya Yuusuf mar kale xifatan xoog uu ka dhaxaya Ethiopia iyo Masar Ethiopia iyo Suudaan oo ka wada dhaxaya arrintaasi marka iyadoo walwalkeeda ay qabto ayay waxay ay keenaysaa aaritaanka hadda xagga u aaday in ay u arkaan in uu xagal daacinayo dhinaca wadamada dariska ah muhiimad inayna u lahayn muhiimada ay u leedahay wadamada carabta ee taajiriinta ee lacagta leh taasna marka hadhowdu waxay dhibaato iyo caqabad ku noqon kartaa xiriirkii Soomaaliya iyo Ethiopia ama xiriirkii Kenya iyo Soomaaliya ay ku noqon kartaa hadday ku noqotana runtii waxay dhaawici doontaa xasiloonida gobolka ay dhaawici doontaa xaqiiqatan xagga ammaanka. safarkiisii Sacuudiga sida lagu daabacay qaar ka mid ah wargeysyada Carabta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mas'uuliyiinta Sacuudiga oo ku jiray boqorka Sacuudiga Ken Salman bin Abdul Aziz waxay ka wada hadleen xiriirka labada dal arrimaha ammaanka gobolka iyo saldhig military oo dhawaan Imaaraadku uu kula heshiiyay Somaliland inuu ka dhisto Berbera. Zakariya waa ka mar kale heshiiska horta ma sharci ma ahmiya ma jiraan ma jiro aan marka hore midaas markaan ka baaraan degno dhinacaan degno ayaan waxaan aadi karnaa Ethiopia marka Ethiopia hadda waxay ayna mowqifkeeda dhab u muujinaynin qaanuunka caalamiga ah waxyaalo badan oo mugdi ku jira meesha ka muuqda. Somaliland waa dawlad ka go'day dawladda Soomaaliya laakiin ana helin aqoonsi caalami ah United Nations ina aqoonsaneen Afrikana ina aqoonsaneen sidaa daraadeed marka heshiis caalami ah ma geli kartaa oo ay ku wareejin karto dhulkii qaranka ay u ogolaan karto in military base laga dhigo ma qaanuunka caalamiga ma maadaama ay saas ay tahay marka heshiiskan masih oo dahsoon ayaa dawladda Soomaaliya ay u ogolaatay ay tiri okay Somaliland haydiisa anaga waxba ka kama qabno carasho ka keenayna haddii ay saata Ethiopia iyo Soomaaliya xiriirkooda wax maana Ethiopia walwal kama qabto Imaaraadka walwal badan kama qabto cadaawad badan ma kala dhaxayso laakiin Imaaraadka waxa xiriir fiican leh Carab Masar iyo haddii Ethiopia niilka ayaa buuqooda ka taagan yahay Ethiopia iyo Suudaan sidoo kale haddii arrinta niilka ay xumaato Masar waxay isticmaali kartaa oo meesha awlaad isu bedesho Berbera isticmaali kartaa marka walwalka badan iyo cabsida badan ee Ethiopia ay ka qabto arrintaas waxa waaye qatarta mustaqbalka ay uga imaan karta arrintaas uga imaan karta. dalka Kenya Soomaaliya waxa kala dhaxeeya muran dhinaca badda ah maxkamadda caalamiga ah ee Hague ayaa dhawaan ogolaatay in dacwad ay Soomaaliya u gudbisay la galo Djibouti inkastoo xiriirka Soomaaliya kala dhaxeeya uu yahay mid soo jireen oo xoogan haddana kuma farxayso tartan ka soo wajaha saldhigga military ee Imaaraadku uu doonayo inuu ka dhisto Berbera maadaama ayada martigeliso saldhigyo ay leeyihiin Mareykanka Shiinaha iyo kuwa kale inkastoo uu jiro tuhunka xiriirka aan soo dhalaalayn ee dawladaha dariska iyo Soomaaliya ayaa madaxda dalalka dariska ah sida ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele waxay saddexdooduba ballan qaadeen inay la shaqeynayaan dawladda Farmaajo gaar ahaan khudbadahoodii ay ka jeediyeen caleemasaarka madaxweynaha si ka duwan madaxweynayaasha Kenya iyo Djibouti xafladaasi caleemasaarka ra'iisul wasaaraha Ethiopia khudbadiisii waxay ahayd mid kooban oo taxaddar ku jiray kamana uusan helin xubnaha baarlamaanka ee 329 ah ee ay ku jiraan dhalinyaro ku cusub siyaasadda Soomaaliya sacab iyo soo dhaweyn lamida tii ay u fidiyeen madaxdii kale taasna waxay ahayd sida ay qabaan dadka ka faallooda arrimaha Soomaaliya fariin kale oo ku socotay xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya.
ku soo dhawow warqaad press haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar siina share garee haddii aad nagu cusub tahayna subscribe saar si aad u hesho muuqaallo cusub fikirkaadana noogu soo gudbi qaybta commentiga aad baad u mahadsantahay